jiray oo dhaqankii ah afarta meelood waaxooda waaweyn ayay u qaybsantaa way sii kala baxdaa hase yeeshee marka wuxuu ahaa entity yani qayb kastoo meel taagan oo sideeda u shaqeysa markaynu eegno waa radio Hargeysa TV-ga qaranka bahda fanka iyo suugaanta iyo abwaanada iyo qaybta dawane wuxuu ahaa soo saarta joornaalkana waa afartaasaa mid walba sidiisa u taagan yahay maamulkiisa u leeyahay marka laga tago gaadiidkeega iyo iyaguna wax noqonayo intaasay u qaybsan tahay si guud baan idinku tusay xaaladeedu halkay marayso halkay taagnayd halkay maanta taagan tahay meelaha ay u qaybsanto iyo shaqada ay qaranka u hayso aad iyo aad baad mahadsantahay waxa weeye wararku waxay sheegayeen meesha laga baran war meesha baran ilaacad yaro ay dadku sheegayeen ay meesha ka shaqeynayso inay wasaaradda ka wareysay inay ka warran ku weydiinayeen saddexaad wuxuu ahaa idaacadda maana maqal wanu si dooni haddii aad maqashaado hadaad maqashan haddii lagugu yidhina waynu dooni ha soo gaargaaray waynu dooni markaa كمبني باي نوح الحلا قلع إن كسو يبسن الناس كمبني باي نوح الحلا كوا أدي إنه كوينا فرتمغين عنا الحين مياد ويد كوي بالإنها بيراد ثابتو عاد ويادو لبو يا السلام عليكم واحد ويدي سيء لما كانوا كسو يبسنني لما كبا إنه كأنه إذا عضه هدي عينان قرنينين محاين وعيدون وسوق حيسوي أنه غيرون ninka imanaya mushkiladu waxay noqotay war idaacadii dhamaydiyo arintay ku imanayaan iyo waxay qabanayaan iyo isla qiimo iyo isku dhawaaday anu markaan eegay lacag 100,000 iyo dhiidheeya markaan ku war noo kaalay waxa naga xun baasha anteenkiina waxaad moodaa in wax ka siiyeen inaad noo arjas gareysaan repairingkii arche muxuu ahaa anteenko kaliya ay 69,000 yidhaah تكنيشنادي إيمانية هالكان إذا عدى ينتد بعشان حنا يوحنا سمينا يبين هنا $46,000 وواحد نص قريب